الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إلهي سبحانه وتعالى dadaa wuxuu ku tilmaamay inay quluubta ka jiran yihiin, dadaa wuxuu ku sheegay in qalbigoodu marad ahaaday, qalbigoodu inuu buko, qalbigoodana caafimaad qabin. qof mar allaala markuu qalbiga ka bukoodo diyaarna uusan u ahayn wixii lagu daaweyn lahaa inuu sameeyo, habaar buu mudan yahay. fazaadahum allahu maradan. ilaahay ha u ziyaadiya cudurka, ilaahay ha u siyaadiyo bugtada buu dhaha ila subxaana wa tacaala. cadaab xanuun badanna way leeyihiin, waa beeninta ay beeniyeen ilaahay diinkiisa subxaana wa tacaala. saan la socono walaalayaal, qalbigu waxa uu ka mid yahay meelaha xibnaha bani aadamka ugu qaalisan, wuxuu ka mid yahay xubinta ugu nafciga badan, wuxuu ka mid yahay meelaha rabbi subxaana wa tacaala uu ka fiirsado addoonkiisa. qalbigu hadduu fiicnaado jirka intiisa kale waa fiicnaadaa, qalbigu hadduu xumaado jirka intiisa kale waa xumaadaa. sidaa darteed baa qofka waxaa laga fiiriyaa qalbiga. quluubta waxa ku jira bannaanka soo baxa, waxa qalbiga uu ku fikiraa bannaanka ku soo baxa. qofku mar allaala markaad aragta inuu taqwo iyo iimaan, alla ka cabsi, qur'aan dhegaysi, taaco ilaahay uu ku socdo qalbigiisa waxa ku jira fiicnaada, qalbigiisa waxa ku jira fiican. sababtu waxay tahay qalbiga waxa ku jira bannaanka u soo baxa. rasuulku muxuu yidhi bani aadamka waxaa ku sugan ama qofka jasadkiisa cad yar oo hilib ah, hadduu fiicnaadana jasadkoo dhan baa fiicnaada, hadduu cadkaa xumaadana jasadkoo dhan baa xumaada. taariku salaad aan ilaahay salaadiisa tukanin, gabar aan muxajabad ahayn oo dirac khafiifa bannaanka ku maraysa, muqayil qaad hortiisa yaala iyo sigaar oo aan allahu akbar markaldha soo istaagaynin. ilaahay ka cabsa markaa dhahda waxaa laga yaabaa inuu dhaho attaqwa haahuna, qalbigaygaa fiican. xagee qalbigiisa ka fiican yahay? qalbigiisu hadduu fiicnaan lahaa waxaa lagu dareemi lahaa taacada alla raacitaankeeda, waxaa lagu dareemi lahaa inuu xaqa qaato, waxaa lagu dareemi lahaa wasaqdan inuu ka tago, waxaa lagu dareemi lahaa xijaab inay qaadato, waxaa lagu dareemi lahaa inuu masaajidka soo galo. attaqwa haahuna markuu rasuulku lahaa sal alla calayh wasalam, qofku waxa gudaha uga jira bannaanka yimaada. walaalayaal, qalbigu waa jiradaa, waa bukooda, xanuun baa ku dhaca aan la mid ahayn xanuunada kale, aan la mid ahayn xanuunka jasadka ku dhaca oo kale. qalbiga waa meesha ugu xun hadduu xanuunsado, hadduu fiicnaaduu caafimaado, saliim uu noqdo waa meesha ugu fiican. maalinta aakhiro ilaahay wuxuu tilmaamay inay tahay maalin laa yanfacu maalun walaa banuun, aan ilmo iyo xoolo wax taraynin. wax ma anfaca maalinta aakhira. intaasoo canug baan dhalay, 5 gabdhood iyo 5 wiil baa ii joogtay, hanti iyo xoolaan lahaa. yowm laa yanfacu maalun walaa banuun, wax ma anfacaan maal iyo owlaad ilaa man ata allaaha biqalbin saliim, ilaa qof la yimid qalbi caafimaad qaba maahana buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala. qalbi fiyow, qalbi aan bugta ku jirin, qalbi saliim ah oo nadiif ah oo caafimaad qaba qofkii la yimaadaa, kaasaa wax anfacaya maalinta qiyaamaha. idan quluubta aad aan ugu dadaalno.
waxaana laka rabaa qalbigan bugtada ku dhacay inaan daaweyno, waxaana laka rabaa qalbigan xanuunsada in caafimaad loo raadiyo, waxaana laka rabaa qalbigan wasaqda gaaray in la nadiifiyo, qalbigan daxalka iyo mirirka yeesha in mirirka laga qaado, qalbigan xumaanta galay in xumaanta laga bixiyo, qalbigan habeen iyo maalin adduun ku fikira in aakhiro loo jeediyo, qalbigan mar walba dhibaatada iyo mashaakilka lagu fikirayana in wanaag iyo khayr iyo alla ka cabsi loogu fikiro. quluubta ilaah subxaanahu wa tacaala mar allaala markay caqli qaadato khayr iyo wanaag bay gaartaa. ilaahay baa yidhi afalam yasiiruu fi lardi fatakuuna lahum quluubun yafqahuuna biha aw aadaanun yasmacuuna biha. dadku maxay u socon waayeen? magaalada inaad socoto, meelaha dadka lagu halaagay aad fiiriso, cirka aayaadkiisii arlada aad fiiriso. afalam yasiiruu fi lardi, dadka arlada kuma soconin miya? markaad arlada ku socoto maxaad yeelanaysaa? magac iyo shahaada ma aha, sharaf gooni ah ma aha, ma aha in la dhaho dalmareen waaye wiilka gabadhaana intaasoo magaalay soo martay. laakiin maxaa la rabaa? fatakuuna lahu quluubun, inay quluub yeeshaan. qalbiga maxaa loogu talagalay? yacqiluuna biha, ay wax ku caqli qaataan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. qalbi ay wax ku fahmaan, qalbi ay ku caqli qaataan. aw aadaanun yasmacuuna biha, ama dhege ay wax ku dhegaystaan, ay ku maqlaan. qalbigaa laga hormariyey. sababtu waxay tahay qalbigu mar allaala markuu soo jeedo, markuu baraarugsan yahay, markuu xaq jecel yahay, dhagahana diyaar bay u noqdaan xaqa inuu galo, indhuhu diyaar bay u noqdaan xaqa inay markaa arkaan. sidaa darteed buu ilaah yidhi inna fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wahwa shahiid. arrintaa dikri baa ku jira, aayaad baa ku jirta, wax lagu caqli qaataa ku jirta. yay ugu jirtaa? liman kaana lahu qalbun, qofkii qalbi leh. waxaa laga fahmaa meesha qofaan qalbi lahayn inuu jiro. qalbi lahow, laakiin qalbi xumaan lagu fikiraad leedahay, qalbina ma aha. qalbi heesa lagu xifdiyaad leedahay, qalbina ma aha. qalbi adduun looga fakeraad leedahay, qalbi ma aha. liman kaana lahu qalbun, ninkii qalbi fiican leh. ow alqa samca buu yidhi ilaahay, dhagaha ayuu soo tuuray. muxuu dhagaha u soo riday? inuu wax maqlo, inuu diin dhegaysto, inuu aayaadka alla maqlo, axaadiista nebiga inuu ku dhegaysto. intaa kadibna shahiid ahoo xaadir ah, qalbiga iyo dhegtu markay isla wada jiraan oo meesha khayrka lagu haya qalbi iyo dheg furan aad la timaado, markaa kadib waaye marka ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag laga gaarayo. dadka muslimiinta idan waa inay yeeshaan qalbi yacqiluuna biha aw aadaanun yasmacuuna biha. fa inaha laa tacmal absaar, indhuhu ma arag beelaan. waa xaqiiqda marka la fiiriyo. qofka indhool noqda marka lagu leeyahay, ninkan indhoolka ah meeshii godka uu kaga leexan lahaa iyo meeshuu jidka u mari lahaa buu leeyahay maahane, xaqiiqdii ma arag beelo indhaha. fa inaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu allatii fi suduur. qalbiga arag beelo buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. qalbigu markuu jirada indhool buu noqdaa. xaqa ma arko, munkarka ma arko, wanaagga ma sameeyo, xumaanta kama leexdo. waayo qalbi buka waaye, waa qalbi mariid ah, waa qalbi aan fiicnayn, waa qalbi aan faa'iido lahayn, waa qalbi aan xishoonin, waa qalbi diin aan raacin, waa qalbi wax kastoo xumaanay la fiican tahay. fa inaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu allatii fi suduur. ilaahay sidoo kale wuxuu ballan qaaday qofkii dhaga wax lagu maqlo, xaq lagu maqla laga waayo, qofkii indha xaq lagu arka laga waayo, qofkii qalbi lagu caqli qaata laga waayo, intaasoo dhan in jahannamo loo diyaariyey. jahannama ayaa lagu daaweyn doonaa. qalbigii adduunka lagu daaweyn waayo, la cilaajin waayo, diinta alla lagu fahamsiin waayo subxaana wa tacaala. ilaahay muxuu yidhi walaqad dara'naa lijahannama kaiiran min aljinni waalinsi. waxaan u qalaqnay jahannamo wax badan oo jinni iyo insi ka mid ah. kaiiran buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. jahannamada aad u jeedaan walaalayaal, jinni insi baa loo abuuray. walaqad dara'naa lijahannama kaiiran min aljinni waalinsi. sababtu maxay tahay? lahum quluubun laa yafqahuuna biha.
qalbi baa la siiyey, fahmaa laga waaye. diin maba ku fahmayaanba, xaq maba ku fahmayaanba, xumaan ma uga cararayaan, wanaag ma ku samaynayaan. quluub bay leeyihiin laa yafqahuuna biha, qalbiyaal baa la siiyey aysan wax ku fahmaynin. walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni waalinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha. indhana waa la siiyey, waxba ku arkayaan, wax uu ku arkayaa malaha. wiilashuna waxay ku arkaan haddii qalbigu ka bukoodo banooniga la ciyaaraaye tv-ga ah, gabdhahana waxaa haddii qalbigoodu ka bukoodo musalsalka tv-ga ah. labadaa ma ahee wax galay ku arkayaan malaha. walahum acyunun laa yubsiruuna biha, maxaa soo haray walahum aadaanun laa yasmacuuna biha, dhegay leeyihiin aysan waxba ku maqlin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. heeskay ku maqlaan, xantay ku maqlaan, xumaantay ku maqlaan, waxyaabaha ilaahay diiday ku maqlaan, diin ilaahay kuma maqlaan. waa dadkuu rabbi yidhi summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun. waana dhagala'yihiin, wayna afla'yihiin, wayna indhala'yihiin, ma ka soo noqonayaan baadidii xumaantay markaa ku jiraan. walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaa'ika kalancaam, xooloo kale waayo buu dha ilah subxaana wa tacaala. maxaad dhaantaa bahaayimta? lo'du maxaad dhaantaa? ariga maxaad dhaantaa? waad cuntaa, way cunaan, way raaxaysataa, way raaxaystaan, way jiiftaan, waad jiifataa. wax kale oo kuu dheer ma laha. salaad male, xijaab male, qur'aan akhris male, taaca alla male, qur'aan dhegaysi male, muxaadaro dhegaysi male, ummadda wax u tar ma laha, khayr iyo wanaag samay male, tasbiix ma laha. sidaa darteed buu ilaah yidhi ancaam waaye, xoolo waaye, waa bahaahim. lo'daa kaa fiican, bal hum adal, ayagaa ka xun buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. xoolaha ayagaa ka liita. bani aadam sharaf leh buu ilaahay kaa dhigay, bani aadam caaqila buu ilaahay kaa dhigay, bani aadam ilaah subxaana wa tacaala karaameeyey ayuu rabbi kaa dhigay. sidaa darteed baad xoolaha ka liidataa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. wa ulaa'ika hum alghaafiluun, waa dad ghaafiliin ah, maba baraarugsanaba, diin alla ma qaataan, taaca ilaahay kuma socdaan. idan walaalayaal, qalbiga waa xanuunsadaa. qofka qalbiga xanuunka qaba, qofka quluubta maradka ka qaba, qofka qalbiga ka jiran la mid ma aha dadka kale. sababtu waxaad ka fahmaysaa qalbiga mar allaala markuu qofku qalbi jabo. waad aragtay markuu qofku wuxuu raba uu waayo, xubinta uu tilmaamo waa qalbiga. qofaad wax ka sugaysay, qofaa wax idinka dhaxeeyeen, wixii baa lagaaga baxay oo waa laguu diiday. hadalka ugu horaysaad ku hadlaysa ma taqaanaa? gabar baad ballanteen, in badan baad sheekaysateen, guurkii baa soo dhowaaday. mar allaala markuu soo dhowaaday ku yidhi baswaani waa ka baxay. gabadha hadalka ugu horaysa ku hadlaysa waa maxay? waad i qalbi jabisay, soo maaha? qalbigaad iga jabisay. lugtaad iga jabisay may ku leedahay? waa maya. ishaad iga jabisay may ku leedahay? waa maya. maxay leedahay? naga tag, waana qalbi jabisay. asagana saasoo kale. mar allaala markay uga baxdo, asagoo isdiyaariyo isdhahaya, xataa saaxiibadii u sheegay, aad iyo aad isku dhigaayo qof mataqaanaa waxay u soo dhow yihiin. markii intay message u soo dirtay dhahda arrinta waa ka baxay, aabbaa diiday, hadalka ugu horeeyo ku hadlaya waa maxay? naga tag, waana qalbi jabisay. idan qalbigu waa waxa keliya ama shayga keliya ama ubucda keliya ee qofkuna uu ka noolaado kana dhinto, qofku uu muralkiisu kor u noqdo kana baaba'o, qofku uu ka niyad dhisnaado ama ku niyad jabo. sidaa darteed walaalayaal, quluubtii noocaas ahayd maanta way bukootay, maanta way xanuunsatay, maanta jiraa saaran. jirada saaranna waa jiradii diinka looga fogaaday, rabbi lagu xusi waayey, khayrka iyo wanaagga iyo waxyaabaha rabbi amrayna lagu samayn waayey. sababtu waxay tahay qofka munaafiqa ah mar allaala markuu ilaahay ka hadlaayay, sida dadka badankeenu ay yihiin, qalbigana afkana waa ka sheeganaa iimaan, afka waa ka rumaynaa ilaahay subxaana wa tacaala, qalbigana uma daadegana. ilaahay baa yidhi idaa jaa'aka almunaafiquun qaaluu nashhadu innaka larasuulullah. munaafiqiin hadday ku yimaadaan maxay leeyihiin? waxaan qiraynaa rasuul ilaahay inaad tahay. yaa uga baahan? wallaahu yaclamu innaka larasuulu.
إلهي وأقيا رسولك سئنا تهي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلهي وأقيا منافقين إني بين علياليهين محاسكو كلفاية اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله وحاكو كلفاية أرنتا وأي دار وضان مرولبا جنبي كدغاناني قاشان ومدي كجيدنا ينجدك في عنبو الله سبحانه وتعالى إنهم صاء ما كانوا يعملون وحا حماضي وحي عمل قبنايين إنهم صاء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فطبع على قلوبهم قلب ذي بالضبولي ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا محلو لجيدا ويرميين أو أفكي كالرميين ويبينيين أو قلبي كبينيين كدبنا إلهي قلبي ذي الضبولي سبحانه وتعالى فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وحي فهميان ملها حتى هدو مساجد فرديو حتى هدو وعد دقيسنايو اسكدا وحكا للنبي محمد هدو هرتاقين يهي oo rasuulku la hadlaayo mar allaala marka la baxo ma yaqaan waxa meesha lagu sheegay sababtu waxay taa qalbigu ka daboolan yahay ilaahi baa yiri wa minhum man yastami'una ilayka hatta idha kharaju min 'indika qalu lil ladina utul 'ilma madha qala anifan hadda muxuu la sheegay buu leeyahay waxa ku jira dadku dhageysanaya ومنهم من يستمعون إليك أذيك دقيسنا يا النبي محمد إلا وحي ماشا فديان إلا لقدر يرى مجلسك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا يا بدتك أوتوا العلم ودتك قلبك فرن ودتك قلبك النظيف كاله ودتك قلبك ذو قيمة ليه ودتك قلبك ذو الدين كأسو جيدا انت يلاحظ لان بيليه ماذا قال آنفا هدم شيء نكي ماشي تاغنا ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأقول إلهي قلبك كذب ولا سبحانه وتعالى ولا ليال قلبك مرض با كدعا جرا كدعضا جرا قفك قلبك أي قبنا لمت ما حسن صوت المعنى عذر ذاك له واسكفر يا ما تدوا مقيه هل كاسو اسكفر يا كليجيسا لا شيكيستا كليجيسا اسكو مقن كليجيسا فكرايا كليجيسا كذيد هيستا كليجيسا دباته هيستا سادرتد با قلبك مر الله لا مركو إلهي ku xiran yahay markay diinta Allah ku xiran tahay mar Allah la markuu khayrka iyo wanaaga iyo wuxuu Allah amray oo sa ugu soo jeedo qofku in sharax buu leeyahay Ilaahi baa yiri qofkii Ilaahi khayr la doono yashrah sadrahu lil islam la tisala wasi'a qalbigaaga waxa laga dhigaa mid waasica uu balaaran yahay mar walba waa farxaan mar walba uu faraxsan yahay mar walba way faraxsan tahay mar walba bashaashada ka muuqata waaya qalbigeeda Ilaahay ku xiran subhanahu wa ta'ala weelasha adduunka Ilaah uu ku leeyahay waa qulubta hadaad wasaqayso xumayso alla agtiisa qiimi wanaag malihid hadaad sawanaajiso oo nadiifiso oo dhaqdo oo khayr iyo wanaag aad ku shubta habeen iyo maalin إلهي بلنبو قاضي إنه لابتاضا واسعيو قفكي إلهي أشر لدونه أما أوسن خير لدوننا لابتيس وحال لقدقا ضيقا حرجا ميل عريري أبو دايلا سبحانه وتعالى ميل عريري أبو ضربتا إنت أدون كورنا كشوف تمرك قلبي قاقي عريري أها إلا عريري أو ليسكو كيني أو واحد ربتا إنت كشوف تأدون أوردن هانتي ذهب حوله مال wax walba inaad ku arooriso ma soconaysa marka wax soconayo isku iimaanaya ma aha sida darteed buu ilaah tilmaamaya qofku ilaahay khayr aan la dooninna laabtiisa dayq xiriir baa laga dhigaa wax kasta way la culus yihiin ka annama yas'adu wa'ad mooda in samada kor adoo meesha fadhiya cirka kor hadii lagu dhaho dib bay kugu noqonaysaa mashaakil bay kugu tahay ma awoodi kartid ilaahay nabigiisa muxuu ku yiri alam nashrah لك صدرك لا بتاذا مكو واسعين يا رسولك إلهي والله قمنا شيئنا ألم نشرح لك صدرك لا بتاذي بانكو واسعيني إسلام نما لغو واسعي إيمان با لغو واسعي وسع با لغو واسعي ذكر الله لغو واسعي سيدا درتد بو عبادة كرة حيثنا رسولك صلى الله عليه وسلم لا بتعافمات كغبت فيو عبادة ويجعشهاي ويؤسو دقدقيسا وقرياقيسا صلاة مركو تاقيني
yahay qofka laabtiisuna ay caafimaad qabto laduu dareemaya cibaadada alla macaan buu ka dareema qofku mar allaala marka laabta uu ka buko hal salaadood oo qul huwala lagu akhriyay waxay ula dhigan tahay hal sano asagoo taagnaa markaasuusan awoodi karin markaasuusan xamili karin luguhu maantoo dhan saa ka yeelayaa waa 3 ama 4 aayadood keliya oo imtixaana rakaca loogu akhriyay nabiga sallallahu alayhi wasallam laabtan ku waasicnay maxaa loo yiri salaad buu u istaagay suura faatiha wuxuu akhriyay faataxo nin saxaabi baa yiri waan la daba tukaday al-baqara furfurtay sallallahu alayhi wasallam laabta caafimaadka qabta say u sharaxaysa fiiri say u riyaaqaysa fiiri say wax kasta ugu waasicsan tahay fiiri al-baqara furfurtay nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabigii gadaal ku tukanay muxuu yiri 100 aayad buu nagu tujin doonaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam 100 aayadood ma ka badin doono way baqara way dheer tahay 100kii markii uu gaaray nabigu waa sii waday sallallahu alayhi wasallam mar allaala markuu sii waday buu yiri waa nagu tujin doonaa oo mar allaala markuu dhameeyo ayuu rukuuci doonaa suuratul baqara waa dhameeyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam fansurna ala alqawmi alkaafiriin markuu gaaray markaasaan isribo dhalaan yarkacdo rukuucaya rasuulka سورة النساء فرفرتي صلى الله عليه وسلم ما الدريمة يدان ما الدريمة يعريري ما الدريمة يلاب عريري وهي قلبي با إلهي كحرا سبحانه وتعالى قلبي يا عافمات قبا ولا ليال قلبي يا فيو قلبي وكمحرنا ميشا قلوبتين كحرا انتهي مر الله لمرك إمامك حتى الركعت انتو بالله والشمسية والتين أغريو وعلينا أمينا دافتا ميشا نسعني أمونا دافا وحي أنداونيني أمونا دافا وحي وحا مجرو وقلبي إلهي كحرا سبحانه وتعالى قلبي جيسا معلق أو كحرا إلهي سبحانه وتعالى سورة النساء أيو إغفر فرطي وادمي آل عمران بو فرطي عبدنا صلى الله عليه وسلم قلبي شرحا سمية سيدا قلبي عافمات قرصا سمين كرا قلبي فيوبا أرنتا سمين كرا ولا لي القلوب تأنداوينو وعكست ما أنت ولا داويي عجيها داويني مضحا داويني لغيبا لداويي عواشيا لداويي qalbiga maradka ku dhaca waa ka dhib badan maradada kale war xanuunka qalbiga haduu ka baabao jasadka oo dhan asaa caafimaad qabaaya war mar haduu qalbigu bukoodo jasadka oo dhan baa bukoonaya qalbigaaga maanta haduu meel hamiyo hadii maanta meel uu jeclaado waad aragtay xubin ku fiican malaha xubin ku hagaagsan malaha waxaad rabtay hadii lagu diido gabadhu rabay hadii loo diido sariirtuusan ka kicin iskuulna ma aadi karo kaad rabtay adigana hadii lagu diido hawlaadan guri ka qaban karin وان عاجزنا بتكون جرت أفري لغاتن كسر سببتم عيتا قلبي جيران قلبي وهدو جردو وقبات آديات مركا وين قلوب تهلا وناجيو قلوب تهلا داويو عذر ذا قلبك كدع محاكم عذر ذا قلبك كدع ولا ليال آدي آد بي أفر بديهين آدي آد أي أتر بديهين قلبك كدع عذر ذا وحكيني كرا وعياب قفك أصغو أصميو أمو مركا اسكدا دعيو حاسدني مذو waxay kamid tahay bugta qalbiga walaalayaal xasadka waxa uu kamid yahay qalbiga cudurada ku dhaca kaliga ba iska go'aaya xasidnimo qofka bani aadamka inaad xasado maba lagu talagelinba dhamaan hal ilaah baan leenahay subhanahu wa ta'ala ilaahayna waa caadil oo noo cadaalad falaa haduu hanti ku siiyo kana uu u diido waa cadaalad ila subhanahu wa ta'ala hadii awlaad gabadha siiyo adna aan lagu siinin waa cadaalad ila subhanahu wa ta'ala hadii rabbi subhanahu wa ta'ala hanti iyo xoolo qofka isugu daro ma inaad 24 saac daba taagnaato ma inaad dhaadisay ku heli karaa say ku heli kartaa maalin walba 3 jilbaab bay qaadataa soo ilaahay ma siinin subhanahu wa ta'ala am yahsuduna an-nas ala ma ataahum Allah min fadli madadkat ku xasdaysan wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu leeyahay am yahsuduna an-nas madadkat xasdaysan bima ataahum Allah min fadlihi wixii ilaahay fadligiisa dheeraadkiisa ee uu siimiyad ku xasdaysaan war hayeelina ilaahay weydiista subhanahu wa ta'ala faqad aatayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa aataynahu mulkan aziman
mulki cadiim ah oo weyn baan siinay. waa dhibaatooyinka iyo cudurrada qalbiga ku dhaca. xaasidku ma liibaano, xaasidku qiimo ma gaaro. xaasidnimadu waxay cuntaa qofka xasanaadka iyo wanaagga uu kasbado, sida dabka uu coosku u cuno oo kale buu dhahay nebiga, ama xaabada suu u cuno oo kale yay kaaga cunaysaa. salaad baad soo tukatay, waad ka soo baxday, xaasidnimaad bilowday. alla see ku yidha, alla see noqota, maxaa dhacay, yaa siiye, xaggee ka heshay? rabbi aabay subxaana wa tacaala. ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya. ayaga maa qaybiya naxariista alla buu yidhi subxaana wa tacaala. maxaase isu kadeedaysaa? maxaad habeen iyo maalin u seexanaysaa adoo hebel mar kasta ka soo jeeda, adoo hebel suu ku heli karaa iyo wixiisa markaa ku jira? saan yaan la samaynayna. laabta nadiif ha laga dhigo, laabta ha la hagaajiyo. waxaana loo diiday iska dhaaf hebel nimca ilaahay ha ka baabi'iyo ama allah kugu soo leexiyo asaga ha ka tirtiranto, taa iska badaaye. ilaahayow kaasoo kale yaa kaa dhiga, xataa waana loo diiday. saasoo kale iyo wuxuu haysta xataa yaa ku siiya, waa tamani iyo majeersi. taa xataa waa mamnuuc buu dhahay nebiga, ilaa fitnayntayn laba maahane. taasaa labana loogaga ogolaaday. labadu maxay tahay? nin ilaahay siiye maal fara badan subxaana wa tacaala, nin ilaahay maal iyo hanti intuu siiyey haddana lagu salliday oo lagu diray inuu xaqa markaa ku bixiyo. jidka alluu ku bixin, masaakiintuu ku taageeri, garoobbadu wax ka siin, agoontuu siinayaa, wuxuu ku dhisayaa wax allaala wixii khayr ah, wixii mashaariic fiican. intaad dhahda ilaahow kaasoo kale yaa kaa dhiga, xataa maa allow ka soo wareeji, kaasoo kale yaa kaa dhiga. waa naloo ogolaaday, waa naloo ogolaaday oo waa naloo baneeyey. iyo nin ilaahay xikmo iyo cilmi iyo diin intuu isugu daray ku dhaqmayee ku camalfalaya, ummadana gaarsiinaya. allow kaasoo kale yaa kaa dhiga. labadaasaa naloo ogolaaday. annagana waxaan habeenii maalin la go'go'aynaa xaasidnimo, waxaan la shidannahay xaasidnimo, waxaan meel kasta la fadhinaa xaasidnimo, waxaan wax walba u samaynaynaa maradka iyo quluubta dadka muslimiinta ah. mar allaala markuu rasuulku barahayay akhlaaqda fiican iyo suu qalbigoodu u fiicnaada, muxuu yidhi? laa taxaasaduu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu wakunuu cibaadallaahi ikhwaanan. ha isxasdina, ha isku dibjeedinina, ha isku caroonina, ee addoommada alloo walaala noqda. addoommada ilaahayow walaalooba, addoommada ilaahayow hal walaal ah noqda. wakunuu cibaadallaahi ikhwaanan. addoommada ilaahayow ikhwaaniya walaala noqda. walaaluhu isma xasdaan, walaaluhu iskuma dibjeediyaan, walaaluhu iskuma caroodaan, walaaluhu isma xantaan, walaaluhu allay caabudaan, walaaluhu waa hal jasad keliya muslimiinta ah. ee wakunuu cibaadallaahi ikhwaanan, walaala noqda. taa waxay kaa baabi'inaysaa xaqdiga iyo waxyaabaha xaasidnimada ee quluubta markaa ku jira. waxyaabaha kale ee maradka iyo dhibaatada noo keena aanana aad iyo aad ugu badannahay waxaa ka mid ah in inta hadal laguu soo guuriyo walaashaa lagaaga keeno, ama ha jiro ama yuusan jirin, adiga laguu keeno kadibna aad qaadato. nebigu muxuu oran jiray saxaabadayda hadaladooda ha ii keenina, waxaan jeclahay anoo saliim ah oo laabtayda ay u fiican tahay inaan beri u soo baxo, inaan arka ayaan jeclahay. haddii maanta hadal hiblaayo lagaaga keeno, shalay baad muxaadarada wada joogteen, salaadaad ku wada tukateen, diintaad wada barataan, kitaabka qur-aankaad isku dhagaysataan. mar allaala marka inta laga tago oo lagaaga soo sheegaa akhbaari hadalla kale, saasay kulahayd iyo saasay ku dhahday iyo ayadaa intaa samaysay, intay ka dhacday iyo xaalkaasay samaysaa. biri mar allaala markaad bannaanka u baxdo ma awoodi kartid hadday kaa hor timaado inaad si fiican u salaanto. waa suuragal dukaanaadan u baahnayn inaad gasho markay kaa hor timaado, adigoo diiday inaad markaa la kulanto. walaa tadaabaru, ha isku dibjeedinina. xaaladahaasoo dhan bay keeni kartaa walaalayaal. quluubta mar allaala marka ilaahay diintiisa laga fogeeyo waa cudurka ugu daran ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay quluubtu inay ku bukato. waayo qur-aanka iyo dikriga alleh ayuu qalbigu ku xasilaa, ku caafimaadaa, kuna bogsoodaa. ilaah muxuu yidhi alaa bidikri illaah
tadma'inu alquluub. dikriga allah qalbigu ku xasilaa, ilaahay oo la xusaa qalbigu ku degaa. caawo dhan markaad tasbiixsatood ilaahay ku xiran tahay iyo mar allaala markaad qiila waqaala waa la yidhi waa la lahaa saasaa la yidhi iblaayaa sheegtay ebil baa sheegay meesha aad la fadhiso qalbigaagu isku caafimaad ma noqonayo. walaalayaalow qalbiga qur'aanka ku daaweeya. qalbiga qur'aankii dikriga allah lagu daaweeyaa, kaasaa khayr iyo wanaag lagu gaarsiiyaa. haddii laga fogeeyo cudur uma dhinna. xaalada noocaasuu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala. marka qalbiga waa in aad yaad loo hagaajiyaa. waxyaabaha kale ee quluubta cudurka u noqon kara maxaa ka mida? khaasatan ragga, dumarkaa ka mid ah. waxay ka mid yihiin waxyaabaha maradka u keeni karaa. caawo dhan hadduu ku fikiro heblaayo, caawo dhan hadduu ku fikiro gabadhow galaaska la dhigto, gabar dhalaalayso fasalka joogtaa jirta, dhallinyaradu in badan bay ku sheekaystaan. waxay ka mid tahay waxyaabaha quluubta bukiya. saa darteed buu ilaahay gabdhaha la hadlay, markaasuu yidhi falaa takhdacna bilqowl fayatmaca aladii fii qalbihi marad. hadalka ha jajabinina, hadal jajabsan ha ku hadlina, hadal khafiif ah ha ku hadlina. marka aad ragga la khitaabaysaan ama aad taleefon kula hadlaysaan ama aad si kale ula hadlaysaan, waxaan wax bedeli karaa ee raggii laga yaabo inuu u sigto inuu istaaga ka dhaco, ka daaya walaalayaal. sababtu waxay tahay fayatmaca aladii fii qalbihi marad. ka qalbiga ka jiran yaa damac ku abuurmaya buu dhahay subxaana wa tacaala. damac baa ku abuurmaya xataa haddaadan rabin, xataa haddaadan u baahnayn, xataa haddaadan dan ka lahayn. assalaamu calaykum aad tiraahdo oo uu ku yidhaahdo wacalaykum assalaam abow aad dhahdo, maantoo dhan meel isdhiga ma laha. caaboo dhan ma seexanay, tiibaa ku taagan wixii oo dhanba. maantoo dhan ilaa qalbigu ka bukaa. abowdii baa kaa soo baxsatay ama waaba tiri dan aad ka leedahayna ma laha. 20 sano laga yaabo inuusan hilmaamin kelimadaa keliya. saa darteed walaalayaalow cudur bay tahay xaaladaaye, waana qalbiga cudurada ku dhacee, taana ha laga joojiyo. wax badan ilaahay ka xishooda, khayrka iyo wanaagga ku dadaala. awaamirta ilaahay khayr iyo wanaag u sameeya. qalbiga wuxuu saliim waxyaabaha bukaysiiya ama cudur ka geliyana waa in bani aadam kasta xaqdi aad u qaado. dadkan walaalaha waaye, kii ku dhibana cafi, kaad wax gaarsiisana cafiska dalbo. qalbigaaga wanaag baa gaaraya. nabiga sallallahu alayhi wasallam asoo masaajidka fadhiyaa nin soo galay, ama intuusan soo gelin buu yidhi albaabka waxaa ka soo geli doona rajul ahlu jannaha. allahu akbar. nin adduunka maraayo masaajidka soo gelaya, haddana ahlu janna nabiga uu yidhi wax sahlan ma aha. camalka uu ku gaaray wax fudud ma aha. waxaa soo galay nin inay weysadu ka tifqayso, gacantiisa bidixdana dacaskiisa ku wata. saabuu u soo galay, uu iska fadhiistay. waa la kala yaacay. maalintii labaad buu yidhi albaabka nin ahlu janna ka soo geli doona. waxaa ka soo galay isla ninkii weysadu ka tifqayso, gacantiisuu ku wataa dacaskiisa. masaajidkuu soo galay. maxaa ka tifqaaya? weyso. maxaa naga tifqa? qamra soo maaha. maxaa ka tifqaaya? biyo weyso. waxaa naga tifqaaya biyo najaaso. waxaa ka tifqaaya weysadii ilaah amray subxaana wa tacaala. xan iyo balaayaa naga tifqaysa. maxaa ka tifqaaya biyihii weysada. sidaa darteed buu iska fadhiistay. maalintii saddexaad ayuu nebigu yidhi isla ninkiibaa soo galay. mar allaala markuu soo galay la kala tegey, nin baa dabagalay. wuxuu raadinaya camalka uu ahlu janno ku noqday iyo waxa uu sameeyo. wuxuu ka waayey salaad dheeraad ah, soon dheeraad ah, amar kale oo dheeraad ah, ee camal fiican oo dheeraada uu qabto ilaa waxay dadku ay sameeyaan maahane. walaalo maxaad samaysaa? nebigaa 3 maalmood saa yidhi inaad jannada ehelkooda tahay. waan seexdaa buu yidhi qalbigayga oo saliim ah, qalbigayga oo caafimaad qaba, qalbigayga oo bogsan, qalbigayga oo aan bukoonin. hal qofood oo muslim ah xaqdi uma hayo. hal qofood oo muslim ah qalbigayga xumaan uguma jirto. suu u jiifa markuu soo baraarugo oo dhinaca kale isu gedinayo, wuxuu yidhaahdaa ilaahayow i cafi, ummadda waan cafiyeye. ilaahayow isaamax, dadka waan saamaxaye. ma ku jirtaa qalbigeena? maalintii qalinkuu diidayna col baad u haysaa. maalinkii mijinqaada noo diidayna maba la hadalna, kaa warkiisa iska daa. maalintii ku tiri soo bax meel ii raaci kaa cudur daaratayna ilaa 7 da'aad ay ka dhasho col baad noqonaysaa. xaaladda noocaasaa qalbigeenna ku jira. ninkaana wuxuu leeyahay ilaahayow ummadda waa saamaxay, anigana iska kay saamax.
ilaahu cidaan wax u haysta malaha kii idulmiye iyo kii icaayay kii dhibaatii gaarsiiyey kii ugu xadgudbayba aad ha loo dadaala qalbiga waxa lagu daaweeyaa oo ugu horeeya waa dikriga ilaa saan soo tilmaanay aqrinta qur'aanka walaal qalbigay nadiifisaa allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashaabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah waxyaaba qalbiga nadiifiyay kamid tahay qalbiga waxyaabaha lagu daaweeyo walaalayaal ma aha saabuun ma aha shaambo ma aha cirbad ma aha kaniini ma aha wax intaad meel u gasho saf loo baahan inaad soo iibsato waa wax fudud oo aad iyo aad u wanaagsan waa qalbigaaga oo ilaahay ku xirta subxaanahu wa tacaala waa qalbigaaga oo muslimiinta qishkii qiyaanada uga dayso waa qalbigaaga oo dadka muslimiinta ka jeclaato waa qalbigaaga oo nebi maxamed ku weynaada sallallahu calayhi wasallam waa qalbigaaga oo khayrka iyo wanaagga aad ku ziyaadiso waa qalbigaagood ilaahay ku xirta subxaanahu wa tacaala intaasoo dhan haddii la sameeyo khayr iyo wanaag baa la gaarayaa adduunkana cizi baan ku noolaanaynaa quluubta aan hagaajino quluubta aan nadiifino quluubta aan ka dhigno quluub ilaa subxaanahu wa tacaala jecel yahay ilaahay dadka wuxuu ugu necab yahay dadka qalbiga qallalan leh wuxuuna ugu jecel yahay dadka qalbigooda qur'aanka iyo diinka iyo amarka alle ku soo jeedaa ilaa xaqa waxaan ka baryaa inuu xaqana waafajiyo طاعة الدين تنغصه سبحانه وتعالى قلوبتنا إلهي هكذا قلوب نظيف أو عافمات قبتا ربنا جعل هذا إلهي هنقبت بهذه قلبي قللا أو نار جهنم الله تلقري إلى سبحانه وتعالى حنك رجينا يا دمان تنبا خيرك وناقا إيه الدين تيسينو مركان نغصه بالله التوفيق والله سبحانه وتعالى